asagoo la amray in la soo xiray marka berri niman qaraabadiisa oo ganacsata oo abgaala yaa xijaab intay u xireen oo lacag ku bixiyeen airportka sidii Istanbul looga dajiyay ninkii Ibrahim Macalin xagee ku dambeeyay oo Ibrahim Macalin habeenba waxaan ku uri intuu banaanka ii soo bixiyay buu gurigiisa cunto iga keenay wuxuu ii keenay bariis oodka ay timir saaran yihiin wuxuu igu yiri niyahuna aadan ugu xumahay runtii aniga ma awoodin inaan meesha wax kaaga keeno gurigeyga adigana waxaan xanuunsantay saliida ay dhibaysay daryeel ma jirin hal maalin cunto ii keenay waxaan ku iri Ibrahim Macalin oo hal erayaan ku iri ilaahay waxa maalin dhici doonta hadda aniga adiga ilaahay baa noo dhaxayaan ku iri raqiib iyo catiinda garbeygay saaran yihiin adigana sidoo kale makhraati aan ilaahay ahayn maanta ma lihin baan ku iri maalin nimankan danahooda u fulinaysaa waa iska indhatiraysaa wanaaga iyo reer ahlu diin ka soo jeedaa baan ku iri sida aan ka muuqato reerihiina dadka xataa haddii qofka la soo xiro soo islaamnimo xataa inaad fiiriso waxaa ka awood batay adoo fahdiyaysiin raali geliyaan ku iri macnaha islaamnimada adoo fiirinaya waxaa ka awood batay raali gelinta fahdiyaysiin markaas waxaan iska hilmaantay xataa dad insaan ah oo muslimiin inay meeshan ku xiran yihiin meesha ay mas'uulka ka tahay ogow dadkan mas'uuliyadda adaa hayaan ku iri waxaan ku iri maalin waxaa dhici doonta anigu hadda ilaahan bariyaa 15 bari hal maraan quraan ka dhameeyay laba bilood meesha ku xidhnaa 4 jeer aan quraan ka dhameeyay maalin waxaa dhici doontaan ku iri dadkan wada ooynaya meesha habeen maalin adigu ku habaaray Ibrahim Macalin ilaahay ma dulminayo ducada xabaarkoodana ilaahay u soo daahirin doonaa maalin meesha aan ku jirin aniga meel ka xun aad gali doonto yaa dhici doontaan ku iri saad u fulinayso awaamirta aniga markii la soo daay Nairobi aan imid yaan waxaan arkay kuwa xabsiga ku jiray kuwa xabsiga ilaalada ka ahaa mid kamid ah hotel aan deganahay hotel Bincan la yiraahdo iyo ila soo degay indhaha markuu igu dhuftay inuu isku kaadiyo waxba kuma dhinnayn wuxuu isiri ninkii u gacan gashay wadanka Kenya uu joogaa oo bilaa uu ugu dhamaatay waan u yeeray gacantan qabtay meel aan fadhiisay shahan wada cabno aan ku iri aniga Kenya jooga kama argusanay sababtoo nin Soomaaliyeed tahay adiga ma shaqeynay ficilka ka afcaalta ashkhas ficilla ay ku waxa ka yimid ma ilaa wada dhibaataysay meeqa maana jiidaan ku iri dibka ii geysatay ma ahan wax ka imaada jirkaagu diiday laakiin de amar ka weynaa yuu ahaa haddaad qaadan weydane barta aan ku jirto umbad bari soo galeeyay Ibrahim Macalin iga waan wareystay wuxuu yiri Ibrahim Macalin shay toban bari kama dambeeynin niman qabiiladiisu la kulmay barigii abgaalkii wax la isku dhici jiray oo fahdiyaysiin ka soo horjeeday buu si gooniyo la kulmay fahdiyaysiin shakiya la galay waxa ninka dadka la kulmay waa ninka kicinayo muduloodka iyo waxaas kicinaya Ibrahim Macalin uu ka soo horjeestay intana dab uu ka wadaa oo awood buu yeeshay xogaa dhaqaalana uu sameystay fahdiyaysiin markuu wuxuu sameeyaa qofka durbe xilka ma qaado horta qofka uu bahdilaa intuu saxiil ka qaadin qofka akoonnadiisi dhaqaalihiisi lacagihiisi meel walba laga soo xiray markuu arkay inaad dhulka aad taalo iyo hadan wuxuu ku daray gaariga inuu ka qaado ciidankan inuu ka qaado intii baa lagu sameeyay asagoo la amray in la soo xiray marka berri intii lagu xukumay waliba dambi dusha laga say sameeyeen uu asaga raali ku ahaa yaa waxa lagu xukumay inuu ka soo horjeestay dawladnimadii maarta wadanka jirtay asoo sargaalana uu takriifal dhaqaale sameeyay yaa lagu xukumay niman qaraabadiisa oo ganacsata oo abgaala yaa xijaab intay u xireen oo lacag ku bixiyeen airportka sidii Istanbul looga dajiyay kaliya waxa uu aarsaday inuu qabiilkiisa la kulmay wuxuu aarsaday odayaal fahdiyaysiin ka soo horjeeday inuu si gooni ah ula kulmay fahdiyaysiin ninka u shaqeynaya waa inaad mas'uulsha markaad galaysid u sheegtaa oo tiraahdo aniga ugu mas'uul baan galayaa la soco